garsoorayaal ayaa eedeyn u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya waxaana ay ku eedeynayaan in ay markaasi soo farageliyeen shaqaalaha ka shaqeeya garsoorka Soomaaliya oo boosaska qaar ama shaqaalahaasi xilalka ay hayaan kuwa kale lagu bedelay. wariyayga Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkaan oo siyaan baqaadaya. 22 garsoore oo ka shaqeynayay maxkamadda gobolka Banaadir tan degmooyinka iyo racfaanka ayaa laga joojiyay shaqooyinka kadib markii amar ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. garsoorayaashan ayaa waxay eedeyn kulul u jeediyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, waxayna ku eedeeyeen gudoomiyaha maxkamadda sare in uu booskooda ku bedeshay dad ay qaraabo yihiin iyagana sidaasi shaqada loogu joojiyay. sidoo kale waxa ay sheegeen garsoorayaashan in gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu dhibaatooyin ka wada hay'adaha garsoorka. guddi u hadlay 22 garsoore oo cabashada ka muujiyay madaxda sare ee dalka ayaa waxa ay baaq u direen madaxda dalka. qaar ka mid ah garsoorayaashaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa waxa la jibiyay waa waxa ummadaani isku joog ummadaani xadeeqo waxay ayada inay ku dhaqan mudane madaxweyne horeyaan ku sheegnay awkaatayna ku sheegay waxa la isku haasto waa qodob dastuuri ah waxaan ku leenahay waxa jibiyay qodob dastuuri ah kalaaw sax waxa burbursan waxa loo soo duuli garsoorka waay waxaad ahayd waxa tahay ilaaliyihii sharciga wadanka dadku ku tumanay sharciguna waa dad adigu warqadaha ku keensada ku hoos geliyay mudane madaxweyne arrinkaasi kalaaw hadda bal fiir waxa uu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda wuxuu keensaday dad qaraabo yihiin ayuu ka soo shaqaaleysay garsoorka dadkii shaqeynay uu leeyahay hal baxo madaxweynuhu dikraad u keenay uu leeyahay inta way xun yihiin intaan is saxiix inta musuqmaasuqan ku soo eedeeyay sababtoo ah si kale shaqaale reed qof looga qaadi karo xilka ma jiro waxa kaliya oo ku weyn karaan waxay tahay in la eedeeyo la yiraahdo dadka musuqmaasuq waay marka la raacday dadka lagu soo bedesho ujeedku wuxuu yahay in dad la shaqaaleysiiyo dad la keensado cusub meesha lagu soo abuurto ehel. dhinaca kale garsoore Maxamed Ali Ibrahim iyo garsoore Cabduqaadir Maxamed Cusuble oo iyagana warbaahinta la hadlay ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliya isla markaana waxay ugu baaqeen in uu ka laabto saxiixa uu saxiixay 22 garsoore in shaqada laga joojiyo. burburka iyo dhibaatada loo geystay tiirka saddexaad oo ah garsoorka dalka hay'adda garsoorka dalku wuxuu ka mid yahay 3 tiir ee dawladda 2 tiir ayaa shaqeeya mudane madaxweyne waxa tahay ilaaliyihii sharci sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweyne arrintaas waa arrin qalad waa arrin lagu tuntay dastuurka iyo shuruucda kale ee lagu idmaday inay ilaaliso oo lagu tumanayo macnaha xuquuqda garsoorka uu leeyahay oo macnaha oo soo marin nidaamka garsoorka aan soo marin darishada laga soo gelinayo ee dadka garsoorka soo maray darishada laga bixinayo taas oo macnaha aan uga cabanayno yani xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha sare madaxweynaha kulli aan uga cabanayno waxaan mudane madaxweyne adoo mahadsan inaad arrintaa iyada ah oo adigu aad iska saxiixday oo garsoorayaal 22 ah xuquuqdooda aad maaragtay aad siisay adiga dadnimo ku keeneen arrintaas ina degdeg uga laabato ayaa aan kaaga baahan haddii kale hadduu ilaahay yiraaho waqtiga macnaha waqtiyaha kamid ah adduunkan kugu dacway doonaa hadduu ilaahay yiraaho wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah. weli ma jirto wax warar ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka isla markaana ku saabsan eedeynta ay u jeediyeen qaar ka mid ah garsoorayaasha ka shaqeynayay maxkamadaha dalka.